muslimiinta adduunka oo dhan ayaa ka wada naxay geerida Sinead O'Connor oo ahayd fanaanad hore. intaan ugu dagalin sheekada haddii ay tahay markii kugu horeysa aad soo booqato nagu soo biiro mahadsanid. muslimiinta adduunka oo dhan ayaa la murugoonaya geerida fanaanadii hore ee Irishka ahayd oo diinta Islaamka qaadatay sanadkii 2018. Sinead O'Connor ayaa qaadatay diinta Islaamka sanadka 2018 xilligaasi oo ay iska dhaaftay fanka. Sinead O'Connor ayaa fanka ku soo biirtay sanadkii 1990 waxa ayna fanka saaxadiisa banaysay ama ay ka baxday sanadkii 2018 markaas oo ay qaadatay diinta Islaamka. Sinead O'Connor waxa ay iska bedeshay gabi ahaanba magacii hore ee Sinead O'Connor waxayna baxsatay Shuhada David. waxa ay geerideedu ku soo aaday xilli laga joogo 2 sano ka hor geerida wiilkeedii 17 jirka ahaa. Sinead O'Connor mala dhalan wax walaal ah, taasi oo keentay in muslimiinta adduunka ay la murugoodaan geerideeda. Sinead O'Connor waxa ay ku dhimatay da'da 56 sano.